bal fiiraadi yahuud dhowr la ayaa tahay wallahi oo si dhaarana hadane qoladan waxa ugu fikiray inaan habeen u soo jawaabo because maalintan deeroon lisaafi iftiinkii laga qariyo ay ku haboon yihiin abina video ku sii horeysana aad si fiican u aragteen ama aad si fiican u soo wada daawateen soo la socotay video hore dhamaadkiisa waxaan dhahay part 2 ayaa dhiman hadda marka waa qaybtii labaad hadaba inta aanan u guda galay my beautiful people hadii aad channelkii ku cusubtahay soo dhawow don't forget right here and don't forget to follow inshallah video kale tan waxa ku fikirooya inaan ka dhigo su'aalo oo ah su'aalo aad soo weydiisaan adika arkin fikirkiina waxaad iga aaminsantiin hadii aad jeclaan lahaydeen inaad wax weydiisaan halkaan igu soo qoro wixii su'aalo si aan next video aan u soo sameeyo hadii ay macquul tahay falooyinkan aan ku sii guda jirnaa habka ugu jawaabi lahayn iftiinka iftiinka dhan in laga qariyo ayuu qalmaan waxaan ku bilaabayaa kaalay media kaalay media ya qofkan aa u jeedaan halkan wuxuu yiri adiga Kenyan ma tahay maxaa ka galay mise naagaha adoomeyda ah ayaa lacag ku siiyay isma dhaanta oo soo ay ku dhahay caga dhigo ina adeer YouTube waa lagaaga soo horeeyay okay yeah brother ana lacag ku soo diraa bil walba go back to school ana ka bixinaaye because inta ma aragtay zah ka tahay aqli shaqeeyo malahan so qofka labaad Maxamed Cabdi ayaa la dhahaa as you can see right wuxuu soo qoray wariyaa gaalow beenta naga dhaaf wariyaa ilaahay ma tahay gaalka tahay was xaaladahan oo kaleeto ma aqaan waxa ku jawaabo the best thing oo celinayo markaan oo kaleeto waxa waa dulqaadkayga aan haysto qofkaan oo kale ma korso lahaydeen aqligaagu intuu jiraa diinteena haysataa qof islaane oo ashahaadanayo marka gaal ku dhehaysid diintu miyaad maamusha ma adiga diinta ka saari karo qofka kuna soo celi karo mid kale diinta islaamka wuxuu ku dhahday qofka bini'aadamka xur waayo ilaa baa la xisaabtamaaye adigu qof nooce baad markaad leedahay qof islaam oo muslim gaal ma brother the best thing I can do adigana ku sameeyay ma taqaana ilaahay inaa ku baryo inuu ilaahay ku soo hanuuniyo oo qalbigaagu wadada saxda ku toosiyo oo ku nadiifiyo ilaahay inuu ku soo hanuuniyo because noocaagu kalo hadal xunbaba afkayga ma soo qabanayba kasteero ajirka aaba ka helay ayaa iga noqonaysabo bal aan sii socono qofka kale this is what happened dadkeenu ilaahay khayraasiyo dadkeenu no Soomaalidu idil laakiin ku noocaan oo kale maxaan ku tilmaamnaa dad noocay ku tilmaamna dad muslim ma ku tilmaamna dad yuhuud ma ku tilmaamna dad awaan ma ku tilmaamna xayawaan ma ku tilmaamna bal fiiraadi yahuud dhowr la ayaa tahay wallahi oo si dhaarana hadane so do I look like yahuud aqoon email just media ana iga aragtay diinta hayso warka ma haysid ina hadda soo tugtay warka ma haysid markaas immediately wallahi alleedahay waliba wallahi kalmada wallahi macnaheedu ma garanaysaa ya noocaan oo kale waa nooci ideology-ga maskaxda looga shubo la dhaho adika saxsan qofka haduu tinta si qaldan u jarto gaal way diintu ka baxay qofka surwaal haduu si qaldan u xirto yahuud way hadalkiina jiro diintu ma aragtay qofkiina kaga hor imaado diintu ka baxaybo marka brother ideology-ga lagu soo shubay uma ka mid aad jannada ku galaysid ilaahay ku soo hanuuniyo marka qof muslim oo diintiisa haysto aad ku magacaabeys yahuuda tahay oo hadana u sii raacinaysid wallahi kalmada wallahi ciyaar ma ahane ogaw noocaagu kale tan waxaan dhiilaa ma taqaana the same thing akii hore dhahay gaalka dhahay ilaahay ha idin soo hanuuniyo wadada saxda marag ha idin ku toosiyo ideology-ga idin ku shuro ya ilaahay maskaxdiina nadiifiyo because kuwa khayr loo meekidin bal asiis ana qofka kale Ahmed Xasan as you can see adin nin weyn ayaa tahay maxaa sida qaniisintii timaha u xiiratay waalidka wixii xun iyo wixii wanaagsan kuma soo barin miya alxamdulillah ilaahay khayraasi waalidinteedu ilaahayna janno firdawso hageeyo wallahi wanaag iyo sharaf iyo karaamo iyo xushmad intaba way soo bareen ma fahantay haddana ihtimaayga sidaan u jirto qof weyn baa ahoo waalidkay ma qofkii ilaahay xisaabtamaayo waa ilaahay ma fahantay adiguna ma ahan oo daba ku xaare ya istaaka ka kaadiya ma ahan qofkii ilaahay xisaabtamaayo waa aniga iyo ilaahay maalinta aan qara marka dhinto labada garab malaa'iga saaran qalad iyo saxday qorayaan so you taada ka adkaaw notayda hadii aad rabtid ina ummad waanisidna ma arag baraada wadada saxda qaado oo ummadaha bini'aadamka lagu waaniyo oo lagu soo jiito taasoo ah naxariista nad xooga so adigana waxa ku dhiilaa ma taqana go back to school because you are very speed so intaana indhiina ku wada aragteen sababtaan u soo qaatay ay tinta aniga leecay even dinteeda xataa wax laga sheegay oo laga dhigay yahuud which
aanan ahayn alxamdulilah nin muslina ahay ilaahay ka baqo shantiisa salaad dugto ba sababta u soo qaatay waxay tahay in aan ummadayda ama dadkayga Soomaaliyeed igu xiran waxyaabaha aan la kulano aan tusno at the same time marka tusayno in a way oo qofko uu arki karo inuu wuxuu soo qoraayo ama ku dhaqmaayo ay tahay qalad aniga alxamdulilah waxaan iska normal waa dada maalin kasto waxa la dhahaa waa ku dilayna hadaa ku aragno loo hanjabaa soo marka isna for me ma ahan waxa aan ka gubtay ama aan ka xanaaqay oo maanta aan reaction aan ka bixinayo waa la galay aan dhahayo this kind of thing is normal. And my beautiful people commenting on video horena waa arkay waxaan kala kulmay positive dad badan oo ma sha Allah ilaahay qaraadin sida oo yaani wanaagoodi iyo sharaftoodi hoos ku soo wada qoray aad baan idin kaga mahad celinaya you guys are the best beautiful people kuwana waa kuwa walaalahayno ilaahay ha soo hanuuniyo kuwa wadada hoosan ilaahay tuso waana halkaan ku soo gabagabeynayna videogo you guys are the best beautiful people that I know so inshallah see you the next episode but before waxaan idin ka sugayaa su'aalihii oo ahay inaa igu soo dirtaan Instagram si aan next video aan ugu sameeyno so halkaan ku soo gabagabeynayna see you the next episode my beautiful people